بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحنا كان كسلام يا دمان أمة الرئيس سومالنا بدأيه دبدبة. وحنا كسلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتك بعد وحنا ما تركنا سوق نمد أنك أقول فلنتا يقول هدحة إن أنا عمبارين حسبك وضني لانتي سدلك هولند إن أنا عمبارينه سلقة ميليتري إمارات عرفتها لقى حراشي لأنه عمباريننا أقدر بانكو عمباريننا وحكران كان عمبارين وقدرنا فلكي فوش حما كدعي قالها قرتي ده وحان أقدر كنت غيرنا وسيمبي مثال لأن كنت غير سنة هاي قوانك وصوصار حسب قوضني قدوميها حسب قوضني يوم شرح مدحوينها قدومي عرب قوانك وصوصار نسي آدي آدم وقت سنة هاي إن شاء الله وحالياله وحي واجبين نلو قدبون وفي دونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan anagoo guddigii fulinta qolihii dhexe xisbiga wadani Holland halkan waxaan ka diraynaa ambaareyn ku socota saldhigga military ee berbere laga sameeynayo ee shakhsiyaad gaar ah oo shilimaan eeganaya ay soo hageen Somaliland itaal uma hayso olaad Somaliland waxay ku caanamashay nabad waxaynu nahay wadan aan la aqoonsanayn marka waxaan qabnaa anagu fikir ah inaan saldhig military laga sameyn karin meesha waayo waxayna soo eegan doona quwado aad u xoog badan oo ay ka mid yihiin Iran iyo nimanka Xuutiyiinta ah oo gantaalo aad u riddo dheerna haysta marka ma karayaan dadku dhibaato ka soo gaadha saldhig military oo meesha laga sameeyo waayo dadku waxa kaliya ay maanta haystaan waxa weeye waa nabadgelyo dhaqaale xumo haysa sixir barar baa haya abaaraha haya marka dadku itaal uma hayaan in saldhig military meesha la dulkeeno marka waxaan leenahay dawladuna aqoon darrada haysa iska deyso ninba wasiirka madaxtooyada lagu magacaabo Maxamed Xaashi ayaa sheegay inay cadani inoo jirto 500 kilomitir gantaalaha ridada dheerna waxay marayaan 6000 kilomitir marka aqoon darradooda ay tilmaamaysaa in aanay waxanba ogeynba wuxuu noqon doono ee ay eeganayaan shilimaan yar marka dadka iyo dalka arintaasi umadan ahaa dadkana waxaanu leenahay ka kaca ka banaanbaxa waxad ka sugtaayeen jirin marka waxaan leenahay ummadda Soomaaliland arintaas gobol wal oo ay joogtaba ka banaanbaxdo hakana diyaar galowdo aad iyo aad baan u cambaaryaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمالكم حنا كسلام يا دمار هير سومالنا بسلام يا كارهان كسلام يا حسبك وطني وحنا سلام يا مدحوينا مستقبلك مدحوينا عبد الرحمن ما شاء الله يوقمياش حسبك وان سلام يا وحوي هلكن maanta waxaan isku nimidnay oo shirkan jaraayid oo u qabanay ciidamada beeska laga siinayo gobolka saaxil uu ka weyn yahay wax jeeb lagu rito wax rag u khaasi ay shilimo ku bedeshaan waxa weeyaan gobolada Soomaaliland oo dhan dhiig baa loo soo daadiyay